waxaa magaalada Gaarisa ka socdo dibadbaxyo xooggan oo ay dhigayaan shacabka Gaarisa iyagoo ka cabanaya dhibaato haysata. Dhibaatadan ayaa mid aad u xooggan oo ulal fara badan ku beertay shacabka khaasatan dadka xaafadaha Buula-Mazuri, Dar-es-Salaam iyo guud ahaan waaxda Waaberi oo ka tirsan 4 waaxood ee magaalada Gaarisa. Waxaan sidoo kale makarafoonka la dhex qaadnay dad ka mid ah mudaharaadayaasha waxayna ku jawaabeen sida tan ayagoo cabanaya. maanta maxaa jira Umar Maxamed nin oo keenay annaka mashquul bayna galtay dhalinyarteen ilaahay duudan way baabeen nimankii ka barwaaqo ahaan ilaahay duudan maanta ka barwada ay qayb ku dumayna walay dhamaadeen naga ay bixeen ana Cabdi Umar Maxamed Xuseen liida walaalkayga uu dhintay nafku ma jirto maalinka tagayna way xadiyaan maxaa sabab lagu dilay lagu haysta waxni uu dilay oo sabab aan ka tahay ma jirto ninkaydaan ah nin wadan ku dhashaana nin ilaahay duudan oo alxamdulillah waraaqiisa qaataana كينان كان كل حجر عبد عمر محمد حسين ليدا دولة كينا أنا كويل بالبرسنا نجلته تاسع دوغاني وما سنتا وعيلنا ويا شاي أنا ولا قاعدة وإحنا أنا جوا ماله معاني ولا أستا ويا شاي وحنا جوا شفتها كذي أنا معاني ولا أستا ويا شاي أنا أنت أنا لا قاعدة على روا إحنا قرّبنا كسائر دولة مالية هسنك وكاس هذه جوا أنا شفتها كذي أنا بيل برنامج جوا falkani ayaa fajiciya la yaab ku riday bulshada xaafadahan ee guud ahaan magaalada Gaarisa iyagoo dadka walaac fara badan ay ka muujiyeen sabab la xiriira in falalkani ay aad maalmahan dambe u soo bateen. Dadkani ayaa dowladda mas'uulka ka ah ee Kenya baaq u diray iyagoo sidoo kale ku dhawaaqay erayada ay ka mid yihiin dooni mayno dowladda Kenya. دولة مدارة الله وأنا. المدة أصلاً الوضع بام بينه. هاي تصعد أنا. هاي لكم اللي جاب مدارة Benar.